Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigu waxaan kugu idhi 5 marka 5 loo geeyo ayaa 10. Adna waxaad tidhi 6 marka 4 loo geeyo ayaa 10. Isna wuxuu ii yidhi 7 marka loo geeyo 3 ayaa 10. Iyaduna waxay tidhi 9 marka 1 loo geeyo ayaa 10. Idinkuna waxaad tidhaahdeen 8 marka 2 loo geeyo ayaa 10. Dhammaan waa sax, laakiin dariiqa ay mareen ayaa kala duwan. Haddaan ku khilaafo, kama dhigni inaan qaldanahay ama adigu aad qaldan tahay. Kaliya waynu kala duwannahay. Ixtiraamka iyo istixgelintu waa waajib, natiijada iyo xalkuna waa mid qura. Inta badan mushkiladaha inaga dhex dhaca waxaa sabab u ah 2 arrimood. 1. Ujeedka oo aan la fahmin, iyo in la fahmay waxaan loo jeedin. Xalkuna wuxuu ku yimaadaa 2 arrimood. Ujeedka oo la baadi doono iyo in malo wanaagsan laga malaysto. Labadan arrinba Ilaahay ayaa Quraanka inoogu sheegay suuratul Xujuraat. Wuxuuna yidhi: yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanuu an tusiibuu qawman bijahaalah fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin. waxaa kale oo alla mar kale yidhi: yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kathiiran min addann inna bacda addanni ithm. Labadan aayadood oo ina faraya in haddii war laynoo keeno aynu iska hubinno, iyo in aynu malaha xun ka fogaanno. Gabagabadu waxay noqonaysaa, haddii aniga tacbiirku i gees maray, yuu ku gees marin inaad i weydiiso ujeedkayga. Maanta waynu wada tukanaynaa, balse berri waynu isku tukan doonaa. Adduunkana ma yaallo wax mutaystay inaynu isku khilaafno ama barhkeen barhka kale dartii u naco. Ciwaanka adduunyadu waa kullu man calayhaa faan. Cid kasta oo dunida dul saarani waa dhammaanaysaa. Ciwaanka aakhirana waa khaalidiina fiiha xasunat mustaqarran wa muqaama. Way ku waarayaan jannada dhexdeeda. Meel lagu waaro oo la deganaadana jannada ayaa u wanaagsanaatay. Waynu guuri oo waynu ka tegi, waxaana hadhi doonaa waxaynu ku hadalnay ama kasbanay. Waxaana inaga horeeya kitaabkeenna. Maalin maalmaha ka midana waxaa laynagu odhan doonaa: iqra' kitaabak kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba. Akhri kitaabkaaga, isaga ayaa kugu filan maanta. Maanta kitaabkaagii waad yeedhinaysaa, berrina waad akhrisan doontaa. Ee wanaaji waxaad yeedhinayso si aad ugu faraxdo waxaad berri akhrisan doonto. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.